والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينياشي هراء الدلكة، مدحوينياشا قلمدوك هيرشابيل، مدحوينيه هراء قلمدوك، مشرحينتا، حلباندا، وزيردا، سنتردا، يدمان كسوق قلياشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقتي meesha aan taaganahay qofkii istaagaya garan kara cawada farxadda ay leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysano heshiis is-afgarad ah oo aan soo gudbinay statement-giis. waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii igu garab istaagay ina soo jeediyay hawshan baaxadda leh oo culus inaan guto sida ugu wanaagsan. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancadeydii hawshan soo fududeeyay oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay isbuucii barkii ugu dambeysay ay isugu jiraan xildhibaano iyo senatoro. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay وإذين مقالنا هاي نقول سيحظة ونو مهم أمني قدلك ونو مهم حرية القولك ونو مهم إن ضمانتين كنا نولو ونكسن أو مستقبل في عن له. مظاهرات نبضات وواجب دستوري أو قف كستو oo Soomaali ah oo xaq u leeyahay. waxa iyadana waajib ah in cid marka mas'uulka ka ah laga la shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dibna uu naga soo wada gaarin. insha Allah sida statement-iga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa. insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhameeyo inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirno. shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhameyn lahayn nooguna dhamaan lahayd si xor iyo xalaal ah. waan ogahay habeenadan waad murugeysneedeen insha Allah Ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii. waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhameysano inta nooga hartay. doorasho waa waajib wayna naga go'an tahay dhamaanteen. insha Allah way noo qabsoomaysaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta walaalahay dawlad goboleedyada inta naga maqan dhamaan inaan gacmaha is qabsano oo aan fududeyno caqabadaha jirina aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas anigana aad gacan igu siisaan. caawa waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto dalka xaalad ayuu ku jira oo ah xaalad caafimaad ee coronavirus-ka. yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasadda ayaan ku mashquulsanayn laakiin dadkii dhinac ayay ka baaba'ayeen. waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesano oo aan gacmaha isqabsano oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaano afka xirano gacmaha iska dhaqno lana taxadiro marka aan u soo wada jeesano. waxa kale oo jirto oo aan rabaa inaan idin sheego xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda corona ugu horeeyo waxa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la'aanta. waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la'aan ku dhici doono maadaama ay jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe. waxaan rabaa inaan u soo wada jeesano oo gacmaha isqabsano sidii aan uga gudbi lahayn xilliga jiilaalka ah. caqabadda saddexaad oo ku xigtay iyadana waxa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashano dhaqaalo u sii dhigano fatahadahaas aan ka hortagno hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo idmo. waa mahadsantihiin idinkana waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan.